gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Farax oo weeliyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saaxil Ibrahim Digaale Maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta socdaal ugu kicitimay magaalooyinka Mandera iyo Godaweyn oo ka tirsan gobolka Saaxil suuliintu intii ay ku guda jireen safarkooda ay ku marayeen degmooyinkaasi waxa ay kulamo la yeesheen maamulka waxbarashada ee degmooyinkaasi macallimiinta iyo ardayda dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee deegaanadaasi isagoo sidoo kalena gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadku su'aalo weydiinaya ardaydaasi sidoo uu ogaado baheerkooda waxbarasho gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil iyo xubnaha kale la socday markii ay gaareen degmada Godaweyn waxay sidoo kalena halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay maamulka degmada Godaweyn iyagoo sidoo kalena ka warramay ujeedada safarkooda ay ku tilmaameen mid ay ku dadalgelinayaan hawlaha waxbarasho ee deegaanadaasi aad iyo aad bay farxad ugu tahay maanta inay soo booqdaan oo ay ugu yimaadaan dugsiyadii waxbarashada ee degmada Godaweyn isagoo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolku aan maanta koow ahayn in badan uu soo noqday gudoomiyaha imtixaanaadka ay tahay maanta booqashadii koowaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leedahay gudoomiyaha ku soo dhawaada waan soo dhaweynaa jamcad furan ku soo dhawaada degmada iskuulka uu ka duwan yahay iskuulka Godaweyn ee dhexe marka laga soo baxayo ardaydu waxa ku baxaa inta badan 550 iyo wax ka sareeya sanadkaas waxaan xusuustaa ardaydii ugu sarreysay runtii waxaan tacab badanna waa la geliyey dadaal badan baa la geliyey bulshada qurbo joogta ganacsatada waalidiinta gudoomiyaha degmada guddida iskaashi caalamiga la sameeyay dadaal badan bay halka ku yimaadeen ardaydani waxaana rajaynayaa inay sanadkan sare gobolka iyo waddanka ka gali doonaan oo ugu ducaynayaa in Ilaahay fursadaha muhiimka oo garansiyo oo ay ku guuleystaan runtii waxaan naqbalanayaan soo jeedinayaa bulshada guud ahaan ka qayb qaadatay horumarinta dugsiga ee bixin jirtay qaaraanka iyo dhaqaalaha yar macallimiinta waxaan aad iyo aad ugu xusayaa mar labaad maayirka degmada oo marnaba ilaa uu karay oo qayb libaax ka qaatay hawsha isku baridka iyo joogteynta iskuulka waxaan runtii jecelahay inaan qurbajooga ee Godaweyn in halkan fariin uga faro fariintaas oo runtii waxa weey tacab badan bay geliyeen iskuulka sidii la ii sheegay fotokobiyo iyo printer iyo alaab badan bay geeyeen iyo lacagta macallimiinta runtii sidoo aariyoogu ii sheegay joogto u bixiyaan runtii aad iyo aad waa qurbajooga kale ee Soomaaliland wax badan dheer runtii maadaama mushaarka macallimiinta joogto u bixiyaan mid baan leeyahay maanta oo daraya ilaahay miisaanka xasanaadka waxa hore bixisaan ku daro ilmikana waxaan idin sheegayaa maanta waxaan kormeeraynay dugsiyadii sare iyo kuwii dhexe aad loogu qabto ayaa muuqda oo idinkuna dembiraha wax ku leedihiin maadaama aasaasiyaashii kamid ahaydeen ilaa inta macallimiinta gacanta ku haysan waxa xaqiiqatan waa foomfoorkii ugu horeeyay baa go'da ka baxaya waa 16kii ugu horeeyay 12 wiil iyo 4 hablood gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka iyo xubnaha kale la socdaaya gudoomiyaha waxbarashada hore waxa ay kormeerkaasi la mid ah ugu soo mareen iskuulada ku yaala magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee Berbera safarkan ayaa ahaa mid wax laga ogaanayo hawlaha waxbarasho ee guud ahaan gobolka Saaxil Cabdi Salaan Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera